cadhaysna waxaa jira laba nin oo walaalaahoo reerka iyaga ahoo qaasim qodax iyo loodhan jiray axmed qodax walaalay ahaayeen qaasim daas yar buu buca ku haystay axmedna caaqil buu ahaa caaqil nin fariida buu ahaa waa soo gaadhay dabshaana ahoo qayala dibna marba daaska wuu u yimaadaa dee ninkan wax ma haya qaasim biilka reerku ka qaabilsan yahay wuxuu ku soo daray qoomaha reerkana marba wuxuu hebel baa xidhan qoon ka soo bixi haddana wuxuu ku soo diray dee qaadkii iyo sigaarkiisii dibna qaasim wuxuu arkay inaanu qaadi karin daasku waxaa soo xila wuu yeedhi wuxuu war walaal muxuu ahaa axmedow daaskani intan ma qaadi karo masaariifta qoyskaagu man ka adkaanayaa axmed baa yidhi waryaa waa ninka markuu dee arkay siduu u fakerayo halku dhig caan noqday oo weyn buu yidhi waa kaan ku soo socdo wuxuu yidhi war qaasinow intaad xisaabinayso intaad adigu wax isiisay ama wax i tartay anna aan xisaabinayo intaan qaday weligeen heshiin mayno waxaan leeyahay madaxweynaha waa isu cabaanu isu beer xaadhanee warragga madaxweynaha ku xeeran ee xilalka hayo waxaan leeyahay intaa xisaabinaysaan intaan xumo sameeyey aniguna aan xisaabinayo inta aan hawl iyo halgan adag geliyey dhismaha dawladdan aad haaneedkeeda haysataan ee hadhuubkeediina heensateen wadee heshiin mayno isu soo hilo